saaxiibkay maxamed cabdullaahi farmaajo hal maalin inta noo yeeray inteeni baagamuundada eeda bannaanka taagneed maxay idinla tahay ma dhihin xisbiyada nooca doorashada nooca qaabka dhismaha hay-adaha oo maxaan ku raadahay qabanayo hawsha qawaacidda waqtiga waxaasoo dhan wax miiskaa saaran doodka ogolnahay annaga marka waxaan ku adagnaa rabnaa inaan ii sheego wax walbana laguma adkaa karo wax walbana laguma dabacsanaa karo laguma jircanaa karo dalku inuu xisbiyo siyaasadeed yeesho dadka Soomaaliyeedna fursad la siiyo doorasho qof iyo cod ay galaan waa ku adagnahay xisbiyada nooca doorashada nooca qaabka dhismaha hay-adaha oo maxaan ku raadahay qabanayo hawsha qawaacidda waqtiga waxaasoo dhan wax miiskaa saaran doodka ogolnahay waa laakiin doorasho dadbana la joogaa dowlad goboleedyadii iyo dadkii loo celinaa wixii ka dhacay waa ogtiin amni darra hadday jirto doorasho dadbana ay ka jirtay markii dadka Soomaaliyeed fursad hal la siiyay waa la arkay Puntland qayb badan oo kamid ah fursad dadka lagu siiyay qof iyo cod safaf dheer inta galay sanduuqood qof ku riday qof ku dhimatay male magaalada Muqdisho hal milyan oo qof laga register gareeyay 200 kun oo qof codkooda dhiibatay qof ku dhimatay male sida daata uu sheegay ra'iisul wasaaraha nin askari ah min dharbaxay asagana waa la xiray iyo gabar oo safka iyadoo ku jirto in cod dhiibato rabto foolatay oo meesha muxuu ahaa laga cararay iyadoo foolanaysa wax kale oo ka dhacay ma jiraan haddana sidoo kale rajaynaynaa in aanay waxba ka dhici doonin meesha ugu darna waxba ka dhacay leeyahay waa Muqdisho mar walba laakiin dowlad goboleedyada ilaahay idinkiisa on hal magaalo iyo hal degmo iyo laba degmo aan ahayn oo dadka Soomaaliyeed qof walba rabitaankiisa isku diiwaan galiyay oo kaarka cod bixinta uu haysto war meesha saal ugu bixinaya codkeeda tag inta la yiraahdo dowladdu waxay mas'uul ka tahay ammaanka shabaab inuu meeshaas qashqashaadin kuwa fowdo wado qaab daran in aanay qashqashaadin dadka ayagoo xor ay dhiibtaan codkooda dadka Soomaaliyeed maanta ugu daaweyn inteenan meesha fadhida waay meeqa qofooda 1969kii codaysay oo cod gacanta ku riday akhyar bal gacanta kor loo taago yaa codiya boqor Cabdullaahi Geedi Shador marka bal eeg marka 58 sano ka hor ay ahayd iyo 58 sano wax yar dhamo 57 sano jarjar ka hor ay ahayd ilaa goormaan marka haddana aan sii wadi karnaa dalku ilaahay idinkiis doorasho aadaya doorasho qof iyo cod oo aadaya nimankaas saaxiibadeena walaalaheena oo aan anigu shalay ka tirsanaa jiray laakiin hal mid baan rabaa inaan sheego saaxiibkay maxamed cabdullaahi farmaajo hal maalin inta noo yeeray inteeni baagamuundada eeda bannaanka taagneed maxay idinla tahay ma dhihin on the record aniga iyo madaxweyne Shariif oo hal mar inta nagu marti qaaday oo maalin qadan ugu siiyay one day oo maalin labaad iyo maalin saddexaad mid aan lahayn dadka bannaanka joogan iska badhaafo cid kale oo la tala geliyay bannaankan ka qaylinayna joognay maxay idinla tahay aniga maadaama aan marka taas soo joogay wadadaas inaan ka leexdaan go'aansaday 2022 yaa la doortay 2023 bilowgeedii waxaan ticket business class u diray dadka siyaasiyiinta oo dhan ra'iisul wasaare hore madaxweynaha hore intii adiga markaas ka cudur daaratay oo mashquulaan ay tilmaan hotel dikaalan dejin meesha soo kaanay ana u tagay ra'iisul wasaaraha u tagay labada gudoomiye ee labada aqal ee baarlamaanka u tageen wixii muddada kooban oo joogna qabsoomay iyo meesha u socodnaan sheegnay maalintaas aan u sheegno dalku qof cod inaan gaarsiin inaan rabno xisbiyana inaan dhisno inaan shabaabna inaan la dirin inaan rabno sidaan ula dirirayna inaan u sheegno ee shabaabka xataa iyo istiraatiijiyada wixii hore maxaa ka duwan oo la sameeyay waxaana ka duwan oo rabnaa inaan sameeyno waa u sheegno kamaan qarin wax ku soo boota oo hadda aan shalay iyo darada soo boodna ma ahayn inta ka dambeysana duruufo adag iyo wax badan la soo marmaray oo dib noo dhigay mooyaane maalintii koowaad aan xafiiska nimidaan go'aansanay ra'iisul wasaaraha xukuumadda markuu dhisaan go'aansanaan dhaanay barnaamijka waa kana waa soconayna akhyar marka waxaan rabnaa annaga nabad iyo wanaag iyo wadar ogol iyo waxa soo dhan kalmadahaas isticmaalo dhan dib kuma qabno
tala inaan dadka weydiinana dhibkuma qabno waa tacawada wada lagu eedeyno la war siyaasiyiintana waa kulmisaan culimadana waa kulmiseen odayaasha maxaa loo kulmay horta dhibka idin diidayna iyo hadda safarka iyo meelaha laga yimid iyo yaa idinka dhowreynaa hadda ka bacdi laakiin aad ka sheegtana waa idin kulminay hadii la yiraahdo waa lidii yeerayay muxuu ahay geediya iga ooman iyo beertiya maxaan ku raadaay iga waraab la iyo yaan la dhihina muxuu ahay hadii la yiraahdo loo yimaado marka idin yeer hadii la yiraahdo